kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka ka soconaya teendhada Afisiyoni iyo qodobo qatar badan dhalin kara oo lagu heshiiyay xog ku saabsan doorasho ka dhici lahayd deegaanada Koonfur Galbeed oo lagu xiray siideynta Mukhtaar Robow midowga Afrika oo cadeeyay inuu ka xun yahay diidmadii Soomaaliya ergeyga ay u soo magacaabeen midowga musharaxiinta oo Muqdisho ka wada kulamo xasaasi ah oo ay ku doonayaan ka qaybgalka shirka Afisiyoni intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warkayaga haatan ku soo dhawaada iyo faahfaahsan waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka iyadoo shirkan maalintiisii koowaad uu si wanaagsan ku soo dhamaaday isla markaana lagu kala tagay iyadoo si wanaagsan la isku fahansan yahay shirka oo mid xasaasi ah ayaa waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyadoo ay ka qayb galeen hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa sidoo kale bilowga shirkan ka maqnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay uga qayb galay shirarkii wada hadallada ee madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ay yeesheen kuwaas oo magaalada Muqdisho iyo Dhuusamareeb ka dhacay isla markaana fashil ku soo dhamaaday arinta la ogaaday ayaa waxa qayb ka ah in qodobo la isku afgartay kuwaas oo ilaa 4 gaarayay waxaana qodobadan ay ahaayeen kuwa ay heshiis ka gaareen xubnaha ku shiraya teendhada Afisiyoni isla markaana madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada matalaya iyadoona wada hadalladu haatan la tilmaamay in si wanaagsan ay ku bilowdeen qodobada sida hordhaca ah heshiiska looga gaaray waxaa kamid ah guddiga arrimaha doorashooyinka ka shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ballan qaaday in uu kala diri doono guddiga doorashada ee lagu muransan yahay isla markaana uu magacaabi doono guddi cusub oo lagu kalsoonaan karo isla markaana dhaxdhaxaad ka ah arrimaha doorashooyinka sidoo kale qodobka labaad ayaa ah isla markaana la tilmaamay in qatarta badan ay dhalin karaan arrimo ku saabsan gobolka Gado oo la isku soo hadal qaaday waxaa muuqata in uu jiro tanaasul ku aadan gobolka Banaadir iyadoo oo doorashada maamulka Jubbaland lagu wareejinayo isla maamulkaasi isla markaana goobaha doorashada ay ka dhacayso laga dhigay hal magaalo taas oo magaalada Kismaayo arintan ayaa la tilmaamay in qatar badan ay dhalin karto sidoo kale qodobka saddexaad ayaa waxa uu ahaa walwalka xoogan laga muujinayay arinta gobolada waqooyi taas oo ah in gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo mas'uuliyiinta gobolada waqooyi ay go'aan ka soo saaraan arinta Somaliland loona madax banaaneeyo taas oo meesha ka saaraysa faragelintii villa Soomaaliya iyo saameyntii ay ku lahayd qodobka afraad ayaa waxa uu yahay amniga doorashooyinka arinta kale ee sida xasaasiga ah usoo muuqatay ayaa waxa ay tahay in heshiis horudhaca laga gaaray sida loo sugayo amniga doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan waxaana si hordhaca xal looga gaaray arintaas iyadoo ay ka mid tahay in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada booliiska ah ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyadoona ay wehlinayaan ciidamada AMISOM qodobadan ayaa la tilmaamay in ay yihiin kuwa abuuri kara cabsi xoogan isla markaana la tilmaamay in madaxda villa Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku jiro in arintan ay ka hor imaan karaan isla markaana ay keeni karto in shirka lagu kala kaco isla markaana fashil uu ku soo dhamaado shirka ayaa waxa dibad joog ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in madaxweynayaasha dawlad goboleedyada taabacsan dawladda ee qoorqoor iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir ay goobjoog ka yihiin qodobadan isla markaana lagu qanciyay inay ogolaadaan si shirku uu hore ugu sii socdo lama soo oga hadii qodobadan la meel mariyo dhibaatada ka dhalan karta waxaana la tilmaamay si aadana walwal xoogan laga muujiyay in arintan ay qatar badan dhalin karto isla markaana ay horseedi karto in fashil uu ku yimaado shirka magaalada Muqdisho uga soconaya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka doorasho ka dhici lahayd deegaanada Koonfur Galbeed ayaa la diiday iyadoo lagu xiray in la sii daayo Mukhtaar Robow warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku meel gaarka ah ay ka socdaan kulamo gaar ah iyo kulamo iyo banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa sidoo kale la tilmaamay in Muqdisho si lamid ah kulamo gooni ay ka socdaan oo ku aadan doorasho ka dhici lahayd deegaanada Koonfur Galbeed oo la joojiyay warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in abaabul ay socdaan oo ku aadan in la diiday doorasho ka dhici lahayd deegaanada Koonfur Galbeed ilaa iyo laga soo cadeynayo in Sheekh Mukhtaar Robow la soo daayo
waxaana muddo 2 sano iyo bar ah dowladda federaalka Soomaaliya u xiran Mukhtaar Robow siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqameedyo oo ku beel ah Mukhtaar Robow ayaa arrimahan ka bilaabay Muqdisho iyo Baydhabo iyaga oo durbaba magaalada Baydhabo ay haatan wajahayso culaysyo fara badan oo iska soo horjeeda oo habbeeleedyo u abaabulan waxaana sidoo kale wararka ay tilmaamayaan in hogaamiyaal xisbiyaal u abaabulan Mukhtaar Robow oo ku beel ah ay haatan iyaguna wadaan dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in Mukhtaar Robow lagu soo daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dabayaaqadii sanadkii 2018 lagu xiray magaalada Baydhabo isaga oo musharax madaxweyne ahaa xilligaas la markaana doonayay inuu ka qayb galo doorashada ka dhacaysay magaaladaasi Baydhabo waxaana xarigiisa ka dhashay banaanbaxyo sababay dhimashada 15 ruux iyo dhaawacyo tiro kale oo ka badan iyadoo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa Ethiopia oo dowladda Soomaaliya ay u xil saartay amniga doorashada magaalada Baydhabo Mukhtaar Robow ayaa la xiray kadib markii madaxda filla Soomaaliya ay ka diideen inuu ka qayb galo doorashada ka dhacaysay deegaanada Koonfur Galbeed waxaana dowladdu ay ka dalbatay inuu isaga haro doorashadaas balse waa uu ka dhaga adeegay waxaana ay taasi keentay in xabsiga loo taxaabo iyadoo xildhibaano iyo mas'uuliyiin iyo dad shacab ah oo ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed ay soo qabashada Mukhtaar Robow ay waxyeello ka soo gaartay midowga Afrika ayaa cadeeyay sida uga xun yahay diidmadii Soomaaliya ee ergeygii dhawaan ay u soo magacawday midowga Afrika ayaa waxa uu muujiyay sida uga xun yahay go'aanka Soomaaliya ay ku diiday soo magacaabistii madaxweynihii hore ee wadanka Ghana Johan Mahama oo ahaa wakiilka sare ee Soomaaliya horaantii bishan Soomaaliya ayaa diiday magacaabista Mahama oo ah madaxweynihii hore wadanka Ghana iyadoo ku diidaysa in madaxweynihii hore ee Ghana uu xiriir ballaaran la leeyahay dowladda Kenya oo Soomaaliya xurguf ay kala dhaxayso isla markaana Soomaaliya ay doonayso inuusan sii hurin khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya Kenya sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Cabdi ayaa ergeygan waxa uu sheegay in xiriir dhow uu la leeyahay shakhsiyaad uusan magacaabin oo ka tirsan dowladda wadanka Kenya sidaas darteedna ay dowladda Soomaaliya marnaba aan lagala tashan isla markaana aysan diyaar u ahayn in ergeygan loo soo magacaabo isla markaana uu dhaxdhaxaad ka noqdo arrimaha Soomaaliya ayaa warqad u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki iyadoo oo ku wargelisay inaysan taageero u haynin shaqada cusub ee Johan Mahama waxaana ay muujisay sida ay uga xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya iyadoo oo diiday magacaabista Johan Mahama isagoo ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya waxaana uu ku boorinayaa gudoomiyaha midowga Afrika in uu sii wado wada hadallada uu la leeyahay dowladda Soomaaliya si loo xalliyo khilaafka jira isla markaana uu warbixin ka siiyo in golaha midowga Afrika si loogu dhaqaaqo la macaamilida siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale golaha amniga ee midowga Afrika ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay midowga Afrika Johan Mahama oo ah madaxweynihii hore ee wadanka Ghana ayaa waxa la filayay inuu ka shaqeeyo danaha Soomaaliya si loo gaaro tanaasul wada ogol iyo doorasho wada ogol oo dalka ka dhacda balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa durbadiiba ka soo horjeesatay shaqada uu wado iyo qabashada doorashooyinka Soomaaliya iyo muranka ka taagan in uu yahay ninkan xallin kara xubnaha midowga musharaxiinta ayaa kulamo xasaasi ah oo ay ku doonayaan ka qaybgalka shirka Afisiyoni waxa ay ka wadaan magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha murugsan iyo shirarka ka soconaya magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan Afisiyoni uga soconaya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo sidii loo sii dardargelin lahaa in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka musharaxiinta iyo madaxweyne lafta gareen ayaa ka wada arrinsanaya xal u helidda arrimaha doorashooyinka iyo sidii musharaxiintu ay u taageeri lahaayeen shirka wada tashiga qaran ee madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada uga furmay Muqdisho xogo lagu kalsoonaan karo oo laga helayo kulanka Muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda dowladda iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay sheegayaan in musharaxiintu ay doonayaan in madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne Cali Guudlaawe ay ka baxaan garabka madaxweyne Farmaajo isla markaana ay qaataan tala soo jeedinta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xubnaha midowga musharaxiinta ayaa kulankooda waxa uu ku soo aadaya iyadoo magaalada Muqdisho ay ka soconayaan shirka u dhaxeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada isla markaana looga arisanayo xal u helidda arrimaha cakiran iyo doorashooyinka waxaana sidoo kale xubnaha midowga musharaxiintu ay wadaan abaabul kala duwan iyo kulamo ay doonayaan ay ku muujiyaan sida ay u daneynayaan ka qaybgalka shirka ka soconaya teendhada Afisiyoni iyadoo midowga musharaxiintu waxa ay sheegeen inay doonayaan in khilaafka arrimaha doorashooyinka ka dhashay ay doonayaan in kulamadaasi lagu soo afjaro guud ahaan daawadayaal warka aad kala socoteen Warsida TV wanaga inta nabadgelyo.